kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii labaad maanta waa isniin taariikhduna waa 20 abriil barnaamijka waxaynu kusoo qaadanaynaa wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay tan iyo intaynu kala maqnayn haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa dowladda Pakistan ayaa meel walba u maraysa inuu qabsoomo wada hadalka qaybtiisii labaad si looga hortago mashaqo iyo dhibaato dambe iyo dagaal ka qarxa gobolka waxay ku dadaalaysaa inta aanay xabad joojintu burburin in bal heshiis la gaaro Pakistan telefoonka kama baxdo Mareykanku waxay taagan yihiin waa ogolnaay wafdiye soo direen diyaaradaha soo direen Islaamabad fadhiyaan yaa la sugayaa Iran waxay leedahay anagu waxaan ma fahminba Mareykanka maxaa ka wada hadlaynaa hadduuba go'doomin iyo waxaan loo joogin iyo nagu bilaabay xabad joojintii aan noo dhaxaysay maba ixtiraamaye marka ninkan maxaynu kala hadli karnaa waa nin taagan uraniumkaaga keen uraniumka iska keen miya uraniumka annaga waxay leedahay shaqa ku haysanaa mid waa ka hadli karnaa uraniumka hala yareeyo hub hayaa la gaarsiina waxaas diyaara u nahay laakiin uraniumka keen ma annaga isaga naga adkaaday dhehen wada hadalkii hadda maxay mareen waxa la barbariyaa Iran mar waxa leeyahay Iran wada hadalka way ogolaatay mar waxay leedahay waxaan ogolaanay male sheekadu saasay isaga daba wareegaysaa cadihii la soo dhaaf haddaba marka wararkii ugu dambeeyay haddaan idin la wadaago marka hore waxaa warkan soo saaray wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga Anadolu oo soo xiganaysa warbixino dhinaca Pakistan waxaa la yiri Iran waxay ka qayb gali doontaa wareegga labaad ee wada hadallada kaasoo ka dhici doona Islaamabad waliba waxaa la sheegay mas'uuliyiin Pakistaaniyiin ay xaqiijiyeen in wafdida Iran ay tagi doonaan maalinta talaadada ay berito magaalada Islaamabad warkaas waa fiican yahay waa ka qayb galayaan waa kaas leeyahay wax yar kadib wakaaladda wararka ee Tasniim la yiraahdo ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran taageerta ayaa waxay leedahay waxba iskama bedelin go'aankeenii hore ma ka qayb galin war Iran war ma imaatid war waxaan aan dhameen maxaan nimaadnaa nimanka waa naqaanaa nimankan niman lala fariiso kara maaha Iran la bariya haddaba markaan idin soo warbixin kale waxaa leeyahay warbixin ay soo saartay wakaaladda wararka Tasniim ee dalka Iran waxay sheegeen qaraarka ama go'aanka Iran in uu yahay ka qaybgalka bidan laga qayb galay wada hadallada waxna iskama bedelin intaas ay yiraahdeen wada hadallada waxba iskama bedelin go'aankeena ku taaganahay ma ka qayb galeen warbixintii horena maxay yiraahdeen mas'uuliyiinta Pakistan Iran way ka soo qayb galaysaa wafdideeda bariye imanayana markii sheekadii wali way isku qasataa Iraniyiintii wali ma ogola waxay leeyihiin Mareykanku wax cad hala yimaado wada hadal annagu iskama soo lugoyn Mareykanka waxay ka hadlayaan ka sheekeynayaan talaadada ma imaanaya madaxweyne ku xigeenkii mise ma imaanayo madaxweyne ku xigeenkii ma soo baxay mise ma soo baxay laba kala bariday kala warlaaba maqli jirtay Iran maba ka qayb galayay taagata Mareykanka ninkii ugu weynaa ka qayb galay wuxuu leeyahay ma imaan doona mise ma imaanayo mise hawlihii amniga iyo baqdintii ayuu qabaa oo ma imaanayo mise waa soo socda talaadada Brito inuu yimaado laga yaabo warkaas aba Mareykanka yaala halkan Iran waxa yaala maba imaanayna anaga beeshan maxaa laga yaala marka sheeko waalana jirta marka aad tuso markale warbixin kale Al Jazeera waxay leedahay waxaa la filayaa ninka la yiraahdo Fanis oo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka inuu markaa Islaamabad soo aado berito oo talaada sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters warka yaala Mareykanka Fanis inuu berito soo baxo laga yaabaa talaadada soo aado Islaamabad hadda wuxuu joogaa Washington waatii maalmo ka hor hay'adaha ammaanku ay yiraahdeen halka ha tagin xaaladdu ma fiicna Iran inay aargoosataa laga yaabaa ay dabinku maleegto oo ay tullaahigi lagaaga aaro marka cabsidaas Trump xataa sheegay inuu madaxweyne ku xigeenkiisa u sheegay inaanu bixin marka hadda maxaa leeyahay Reuters warka yaala Mareykanka Fanis uu baxaya talaadada ma Mareykanka inaan tagnaa rabnaa leeyahay wada hadal cidda marka
ilaa hadda marka lagu kari laaya wada hadalka inay imaadaan waa iiraanna waxay leedahay nimankanu wax aamina male. hawshaasu marka halkaasay maraysaa. wararkaas wada hadallada ku saabsan wixii kasoo kordhaa barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. qodobka labaad, ninkii Trump ahaa warkiisii waalida ahaa iska socda. warkii shubmayay ee u bixiyeen macnaha webigii oo kale isaga daadanaya. maanta kaliya wuxuu soo qoraa 20 boost oo soo dhigaya oo fariimooda iska soo qoraya. wax meel ay u socdaan iyo meel kale aan la garanin maanta dhan waxbuu iska soo qoraya. asagaa wasiirka warfaafinta isku ah, asagaa maaragtay afhayeenka aqalka cad ah, asagaa wasiiradii ah, asagaa taliyaashii ciidankii ah, wax kasta asagaa soo qoraayo. waa nooc ka mida waalidoo yidhi nin oo senator Bareker wuxuu yidhi waxaan haddaa aragtaan nooc ka mida kulaha waalida waayo. maanta dhan nin daldal maaha haddaa aragtid wax ka jira male warkiisuu leeyahy. haddaba marka wararkii daldalanka mid ka mid a ayaa waa soo qaadanay. wuxuu leeyahay Trump haddii ay dhammaato muddada xabad joojinta waxaan qarxin doonaa uu ku leeyahay bambooyin tiro badan ayaa qarxin doonaa. tolo waxay yidhahdeen bamba ma u yaray haddaba wixii u haystay waa garaacay ma nuclearkii u amri doonaa ha lagu dhufto iiraan dhihi doonaa. wax kaloo u haray maa jiraa. wixii ninkan gantaalkiisii ugu qatarsanaa Tomahawk ayuu ku garaacay, bambooyinkii wuu garaacay, wax kasta wuu garaacay. maxaa haray dheheen marka bambooyinkan uu ku hanjabay maxaa waay dheheen ninka waalida qaba. marka sheekadaas iyaduna halkaasay maraysaa. wararkii soo kordhay ka bitaay. dhanka kale dowladda Lubnaan waxay sheegtay inay maalinta Khamiista ah wada hadal labaad la geli doonaan Israa'iil. isla wada hadalkii hore meeshuu ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Washington ayuu kana ka dhici doonaa la leeyahay. isla Lubnaan waxay tiri gabadha safiiradda noo ah ee noo fadhida qaramada midoobay ayadaasaa maaragtay wada hadalka nooga qayb geli doonta. haddaba markaan idin tusoo wada hadallada iyo warka laga soo saaray Lubnaan xaggeeda. Lubnaan waxay sheegtay inay ka qayb geli doonto kulanka Khamiista soo socota dhici doona iyaga iyo Israa'iil. masdar rasmi ama warbixin rasmi oo dhanka Lubnaan laga helay ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera in kulanka labaad uu ka dhici doono xarunta wasaaradda arrimaha dibadda maalinta Khamiista ee soo socota kaasoo dhex mari doona Lubnaan iyo Israa'iil. gabadha safiiradda ee la yiraahdo Nada Macwad ayaa la sheegay inay Lubnaan ku matali doonto wada hadalladaas si loo dhammaystiro wada hadalladii hore ee talaadadii halkaa ka qabsoomaanay. marka iyaduna halkaas ay hawshu ka socotaa. wada hadal dowladda Lubnaan iyo Israa'iil dhex maraya halkaa ka socda. Xisbullah iyo halkan jugta la isku haya. Xisbullah marka wada hadalladan shaqaba kula Xisbullah marka adduunka dadka dhan waa wada wareersan. halkan mida u jeeda sheekada dagaalka iyo u dhaxaya ma dowladda Lubnaan iyo Israa'iil ay haysta. Xisbullah Israa'iil dhagaas ka garaacay. dowladda Lubnaan ma ay dagaal ku jirta. wada hadalka muxuu yahay marka halkaa ka dhacay. sheeko marka isku qasara marka beesha ka socota. haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaa alaaba wixii warara soo dhacay kuwii ugu waaweynaa intaynu barnaamijka ku jirnay. haddaba qaybtan waxaan idinkugu hayaa ninka Macron madaxweynaha Faransiiska war soo saaray. waryaab loo soo saaray meeshaan ku qoran. wuxuu leeyahay Mareykanka iyo Iiraan baana waalayaan uu yiri waa khaldan yihiin labadaba. arinta Hormuz ka hadlaya war Hormuz hala furo Iiraan isbaare dhigatay Mareykanka korkeedu isbaare kala dhig. war waxaan sidee u noolaanaa u leeyahay Yurub oo dhan gaaskii iyo shidaalkii wuxuu dhan luuq uga jira. war waxaan sidee yeelnaa labadiinaba waa qaldantiin u taagaya ninka Macron. warkaas ayaa isaguna Al Jazeera gordhow soo saartay oo ay qoraysaa. dhanka kale Ruushka ayaa la sheegay shaqaalihiisii ka shaqaynayay goobaha nuclearka Iiraan in ka badan 600 oo shaqaalaha inuu qaaday oo dalkiisa ku celiyay. meeshan waxa ka soo socda wax yar maahan uu yiri bal shaqaalahayga aan qaato in yaroo injineera iyo xoogaa yaroo shaqaalaha ayuu ku reebay meesha leeyahay. marka goobihii uu ka shaqaynayay Boshar iyo meelahaas
oo ay ka shaqeynayeen nuclearka Iran shaqaalihii xooggiisa waa rartaa 600 ayuu qaatay ayuu diyaarada ku daabulay maalmihii la soo dhaafay wararkaas ayaa ugu waaweynaa kuwii soo kordhay intaanu barnaamijka ku jirnay barnaamijkaygii labaadna waa nageynta waan filayaa inaad ka hesheen barnaamijkankii ka horreeyay koobaad isagoona waxaanu ku soo qaadanay macluumaad iyo warar xiiso leh inta aan mar kale kulmayno like gareey oo share gareey barnaamijka haddaad cusub tahay subscribe-ka ka iloobin YouTube-ka Facebook-ga follow gareey nabadgelyo